qodbo badan halkan uma soo istaagin waxaa noogu filan runtii suugaantii na kicisay oo xamaasadda na gelisay oo wadanyada lahayd ay soo bandhigeen gobolada fanka iyo suugaanta ee Soomaaliyeed aad bay u mahadsan yihiin ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan isugu keenay aan u dabaaldegayno sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegtay 1 July 1960 markii aan xorriyadda ka qaadanay gumaysiga Talyaaniga kadibna labada gobol ee Soomaaliyeed ay xoroobeen oo ay midoobeen waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada uu gudoomiye u ahaa wasiir Dube iyo wasiirada la shaqeynayay oo noo soo qabanqaabiyay toddobaadka xorriyadda oo sida quruxda badan maanta ugu soo gabagabeeyay halkan aad iyo aad ay runtii u mahadsan yihiin waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta idaacadda qaranka iyo warbaahinta guud ee dalka oo xaqiiqatan ummadda Soomaaliyeed kicisay oo soo xasuusisay waayo waqtigii xornimada shacabka Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada uga sheekaysay wixii la soo maray SYL halgankii ay soo mareen aad iyo aad u mahadsan yihiin shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo u istaagay wiigii ama isbuucii xorriyadda oo muujiyay shucuur Soomaalinimo muujiyay xamaasad wadaniyeed muujiyay xaqiiqatan waxay isiisay rajo inay soo noqotay wadaniyadii patriotismkii inay soo noqotay waxaan rabaa wax yar inaan xasuusiyo dalkan waxaa isku haysta afkaar dad ma aha laba afkaar yaa isku haysata annaga laga rabaa marka midaan qaadan lahayn ilaahay wuxuu na siiyay inaan kala dooranno choice yuuna siiyey mid ka qaadato wuxuu leeyahay dhibaatadiisa midna wuxuu leeyahay wanaajiisa aqligeeda ilaahay na siiyay inaan ka fakarno kee qaadanaa marka labada afkaar oo dalkan isku haysatay waxay ahaayeen wadaniyadda iyo qabyaaladda isticmaarka dalkan soo gumaystay ee ingiriiska iyo talyaanigu waxay isticmaalayeen waa mahadsantihiin labaduba waxay adeegsanayeen waxa u fudud ay ummadda Soomaaliyeed ku kala qaybin karaan wuxuu u noqday qabiilka marka muddadii gumaysiga lagu jiray waxa ay isticmaalayeen inay kala qaybiyaan oo na xukumaan afkaarta isticmaalayeen wuxuu ahaa qabyaaladda dhalinyaro ilaahay u soo saaray oo tiri haddii isticmaalku uu isticmaalayo qabyaaladda waa inaan la imaanno waxa ummadda Soomaaliyeed mideyn kara oo wadaniyadda ah si dalka loo xoreeyo dalkana loo mideeyo dowladnimona loo helo afkaartoodii waa ka adkaatay kii isticmaalku uu watay oo ahaa qabyaaladda koodii baa guulaystay wadaniyadii yaa guulaysatay oo keentay in dalka gumaysiga ay ka xoreyso in dalka uu dowlad noqdo dalka inuu midoobo afkaartii waxaa keentay wadaniyaddaa keentay afkaartaas weli xoog iyo leedahay way sii xoogaysatay waxay noo keentay dowladnimo waxay noo keentay sharaf waxay noo keentay dhaqaalihii inaan dhisno waxay noo keentay Soomaaliya inay ka tilmaaman tahay adduunka oo ay sharaf ku leedahay waxay noo keentay tacliin iyo iskuulo in la furayo jaamacado dalkii waa dhistay taasi waxay ahayd afkaartii wadaniyadda laakiin nasiib darro muddo dambe daciiftay waxaa soo noolaaday afkaartii qabyaaladda soo noolaatay way soo noolaatay afkaartii wadaniyadana waa sii daciiftay taasaa keentay waddanka inuu galo dagaal sokeeye dagaalkii sokeeye markuu dalka galayna afkaartii waxaa la qaatay qabyaaladda waana aragnay Soomaaliya meesha dhigtay dalkeenay burburisay ummadeennii waa kala irdhoobeen
dadkeeni waa qaxeen qaar badan qaxooti aadeen qaar badan badday ku baaba'een waa kala qaybsannay ummadeenni way kala qaybisay waa mahadsantihiin ummadeenni way kala qaybisay waa mahadsantihiin ummadeenni waa kala qaybisay waxayna dhigtay Afrika meesha ugu hooseysa dalkeennii qayb yay kala noqdeen cadowgeennii ama shisheeyana waxay heleen sababtii dalkeenna ay u soo gelin lahaayeen oo ay noo sii kala qaybin lahaayeen oo ay weliba noo maamuli lahaayeen haddaba waxaan hadda arkeenno usbuucyada la soo dhaafay runtii ما شاء الله وما سنتين دليرو وما سنتين وقال الدجالك واسعدا أي كهر دمايين ودنيدا يا قبيلة مرة مدة سكر مرة مدة حوجيسته هذا وحقين نقدر هجمرك إنه ودنيا دي سو حوجيسريس أو قبيلة جمايو وحنا كجرت هذا اليرده siday u muujiyeen astaantii qaranka ee calanka ay u muujiyeen siday isugu soo baxeen ay banaanadu taagan yihiin iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan macnaheedu waxay tahay wadaniyadii way soo noqotay hadday soo noqotayna qabiilka waa ka adkaanayna dalkeena dib u soo noqonayaa waa dhisanaynaa dhaqaalaheeni waa soo noqonayaa sharafkeeni magaceeni waa soo noqonayaa إن شاء الله دولة ضل كان وبيدوبي دونا هذا ما وحن كان دورنا وما سنتين waxaan kala dooranaynaa marka labadaas afkaar oo ishirbinaya oo dagaalamaya yaan kala dooranaynaa wala kala safaraynaa ama waxaan la safaraynaa kan wadaniyada oo dalka dhisaya oo idinka idin walaaleenaya oo dalka mideynaya oo sharafkeeni karaamadeen noo soo celinaya ama waxaan dooranaynaa kii aan soo aragnay 30 sano oo dalkeeni burburiyay oo adduunka meesha ugu hooseysa na dhigay أنا ما أمسن إن قادرين كاس دب إن قادرينه وما سنتين مركز ضيال كاس أيسكو هيا ترابليزم كا يا باتريوتيزم عليك تسلم باتريوتيزم وطنيات عليك تسلم صبرا ما وقال وطنيات صباح ذكر ودسرنا صباح ذكر وبدلنا صباح السلام عليكم ورحمة الله